بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أحبائي في الله، ومسلسل كي نوسو سعودي كون سابسنا قصص كي صحيحة أها الصحيحين ككويا لي حلقذني وحلقذي صدحية طبنات وحي لما قعبحضي maxaad ku qososhay. qisaduna waa sidaan soo socota. cabdullaahi binu mascuudin saxaabiga jaliilka wuxuu leeyahay radia allahu tacaala canhu wa ardaah, nabiga sala allahu calayhi wa aalihi wasalama ayaan ka maqlay asagoo dhahaya, qofka ugu dambeeya ee jannada geli doona waa nin marna soconaya marna gurguuranaya, naartu ay dharbaaxayso. acuudu billaahi min annaar. mar alla markay naartu dharbaaxdo xagga ayuu fiirinayaa, markaasuu wuxuu yidhaahdaa, intuu naarta xaggeeda eegaa wuxuu yidhaahdaa, ilaahayow naartani iga najee, ilaahayow naartan iga badbaadi. markaasuu ilaahay wuxuu dhahaa subxaanahu jalla wacalaa, bal waxaad eegtaa geeddaa kaa horraysa, bal eeg. markaasuu geeddii buu eegayaa, wuxuu leeyahay, ilaahayow geedkaa ii dhowee si aan u hadhsado, hoostiisa biyaha yaallana aan markaa u cabbo. inkastoo xadiidku hoos tilmaamin, laakiin biyihiisana aan cabbo. ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala biyahaasi meesha ay kaga jiraan geedkaa. ilaahay baa wuxuu dhahaa subxaanahu wa tacaalaa, haddii aan geeddaas aan ku hoos geeyo oo aad harhkeeda gasho, biyaheedana aad cabto, wax kale ma i weydiisan doontaa? addoonkii markaasuu yidhaahdaa, maya rabbiyow. weliba ballan buu u qaadayaa inuusan wax kale ilaahay weydiisanaynin subxaanahu wa tacaalaa. ilaahay waa u cudurdaarayaa, ilaahay cudurdaar buu siinayaa. maxaa yeelay dhibka ninkaa haysta inuusan u sabri karin ayuu og yahay alla subxaanahu wa tacaalaa. ilaahay waa dhowaynayaa, geedkiibuu ku dhowaynayaa. waa geed kale ogow, hadda geedkii ma aha. geed buu ku dhowaynayaa, geedkii uu dalbaday weeye. markaasuu hooskiisii buu tegayaa, biyihiisina waa cabbayaa. kadib baa waxaa la tusayaa geed kale oo ka sii qurux badan, kana hadh macaan, kana biyo macaan ayaa la tusayaa. wuxuu leeyahay mar labaad, ilaahayow geedkaa ii dhowee, biyihiisana aan cabbo, hooskiisana aan hadhsado. waxaan kaloon rabbow kuu sheegi inaanan wax kale ku weydiisanaynin haddaad intaa ii samayso. ilaahay wuxuu yidhaahdaa, aadam wixii aadam ka farcamayow, war nin yahow, miyaadan ila ballamin, cahdi iyo ballan miyaadan ila gelin inaadan wax kale i weydiisanaynin? markaasuu addoonkii wuxuu dhahaa, ilaahayow mar dambe waxba kuma weydiisanhayo haddaad hadda tan ii samayso. ballan buu la gelayaa, wuxuuna leeyahay, rabbiyow hal mar geedkan ii dhowee. rabbi waa u cudurdaarayaa, li'anna dhibka haysta ayuu rabbi arkayaa subxaanahu wa tacaalaa, cilmina u leh. ilaahay ninkii geedka ayuu u dhowaynayaa, hooskiisa ayuu hadhsanayaa, biyihiisana waa cabbayaa. asagoo halkaa ku sugan ayaa geed saddexaad oo jannada albaabkeedaba ku taalla, kana wanaagsan labadii hore. waa geed saddexaad labadii hore ka wanaagsan ayaa la tusayaa. wuxuu leeyahay, rabbiyow ii dhowee, geedkaa jannada albaabkeeda ku yaal aan hadhsado, biyihiisana aan cabbo. ballanna waxaa iga ah inaanan mar dambe afkayga kuu kala qaadin oo aanan wax kale ku weydiisan. ilaah baa wuxuu dhahaa,
bini aadamku ballan xuma war miyaadan ballan iga qaadin ooda ila ballamin inaadan wax kale i weydiisan doonin wuxuu dhahayaa addoonkii balaa waan kula ballamay rabbiya waan kula ballamay laakiin tani waa tii ugu dambaysay ilaahay waa u cudur daarayaa li'anna dhibkuu ku sugan yahay buu alle u cilmi badan yahay waa u dhowaynayaa geedkii mar alla markuu geeddii u dhowaado oo uu maqlo dadka ahlu jannada ah dhawaqooda raaxadooda siday isu salaamayaan iyo siday isu qaabilayaan iyo nicmada meesha taalla markuu maqlo ayuu leeyahay rabbiyow igeli ayuu leeyahay markaasuu allah wuxuu dhahaa yabna aadam ma ku raalli ma ku tahay in janno lagu siiyo la-eg adduunyada oo dhan oo laysku daba tolay sidii laba maro wax la-eg waa 7 samo iyo 7 dhul iyo inta u dhaxaysa oo laysku daba qabto oo laysku daba tolay janno la-eg ma ku raalli tahay inaan ku siiyo fa subxaana allah waa qofka ugu dambeeya ee janno geli doona makhluuqaadka ilaahay uu jannada u oggolaaday inay galaan qofka ugu dambeeya ee jannada geli doona ee intaasoo dhiboo soo maray oo intaa jahanname iyo naar ku soo jiray haddana yacni dembigiisii baa halkaa geeyey wamaca daalika abaalkiisu wuxuu noqday haddana in la dhaho ma ku raalli tahay 7 samo 7 dhul janno la-eg in lagu siiyo markaasuu intuu la yaabo ayuu wuxuu dhahaa rabbiyow ma igu jeesjeesaysaa atastahzi'u minii miyaad igu jeesjeesaysaa rabbiyow miyaad igu ciyaari wa anta rabbulcaalamiin adigoo ah caalamiinta oo dhan rabbigood adigoo ah miyaad igu ciyaaraysaa markaas halkaa markuu xadiidka marinayo xadiidka cabdullaahi binu mascuud ayaa noo wariyey cabdullaahi binu mascuud wuu qoslay qosolku xadiidkan oo kale musalsal baa la yidhaahdaa walmusalsalu qul maa calaa wasfin ataa mithlu amaa wallahi anba'ani lfataa musalsal baa la yidhahdaa qof walboo xadiidka warinaya wuu qoslaya saan hadda u qoslayo sidaa daraaddeed cabdullaahi binu mascuud baa qoslay waana meeshaan ciwaanka oga dhignay maxaad ku qosli aw maxaad ku qososhay fadaxika ibnu mascuud faqaala cabdullaahi binu mascuud baa wuxuu saxaabadii dadku u sheegaya xadiidkii wuxuu ku yidhi miyaydan i weydiinaynin waxaan ku qoslay markaasay waxay dhaheen oo maxaad ku qososhay wuxuu yidhi haakadaa daxika rasuulu llahi sal ly slam sidaa aan u qoslay ayuu nebi moxamed u qoslay markaasay saxaabadii waxay ku dhaheen nabiga bima tadxaku yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow maxaad ku qososhay markaasuu nebigu wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qoslay allihii rabbulcaalamiin ayaa wuxuu ku qoslay ninkii markuu yidhi atastahzi'u minii wa anta rabbulcaalamiin miyaad igu ciyaari oo miyaad igu jeesjeesi adigoo ah caalamiinta oo dhan rabbigood markuu addoonkii yidhi ayuu rabbi ku qoslay markaasuu alle wuxuu yidhi innii laa astahzi'u minka walaakinii calaa maa ashaa'u qadiir anigu kuguma jeesjeesayo kugumana ciyaarayo maxaan ahay midka wax walba awooda intaanan qisada gebagabaynin waxaan doonayaa inaan dhaho qosolka ilaahay siduu yahay ma naqaano kayfiyadiisa waanu rumaynaynaa kaana waa muctaqadka ahli sunna waljamaaca uxibukum fillah ilaahay daraaddii baan idiin jeclahay qisadan maxaad ka fahanteen qisadan raa'ica ah ee cajiibka badan ee yaabka badan qof walbow isku day inaad macnaheeda dhuuxdo intaanu kaga kulmayno xalaqada 14aad waxaan idinkaga tegayaa uxibukum fillah wa astawdicukum allah wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu